ninkii masaajidka u bedelay meherada cunto iyo mucjisadii ku dhacday waxay ahayd dhacdadii ugu la yaabka badneed ee waayahan la soo tibiyo. haddaba daawada intaan u gudbin dhacdadan iyo sida markaas wax u dhaceen, waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid si uu meel fog u gaaro bulshada Soomaaliyeedna ugu cibri qaataan. ha hilmaamin inaad follow soo dhahday boggeena Facebook iyo YouTube-keenana subscribe saara gambaleelkana furo si ay markaas ugu soo dhacaan dhacdooyinka ku cibri qaadashada mudan ee aynu halkan ku baahino. ku mahadsanid. sanadu waa 1980 magaalada Beledweyne meel kiiloomitiro aad u jirta oo lagu magacaabo deegaanka Chante Kundisho. dhacdadii ugu la yaabka badneyd ayaa xilligaasi laga soo wariyay gacalayaal. ninka waxa uu ku noolaa deegaanka Chante Kundisho, waxa uuna markaasi sadaqaysay masaajid isagoo ka dhisay dhul masaajid halkaasi ka dhisay. raawiga qisadani oo ii sheekeynayay ayaa waxa uu sheegay in ninkaasi uu beydka Ilaahay waqfay sidoo kalena isagu dhulka ka dhisay, balse maxaa dhici doona maalmo kadib ama sanado kadib. ninkii waxa uu meherad ka furtay meel masaajidka u dhow, balse meheradii ayaa cidi imaan weysay. waxa uuna niyadda gashaday in markaasi uu masaajidka dhulka uu ka dhisay inta masaajid ka burburiyo uu meherad cunto ka dhiso. wal ciyaadu billaah. haddaba maxaa ku dhici doona? ninka ayaa markaasi markii niyadiisa ku soo dhacday arrintaasi ayuu wuxuu go'aan ku gaaray in ficilkan khaldan uu ka dhabeeyo. tallaabadii uga dhabayn lahaa ayuu qaaday. habeenkii oo dhan ayuu fakarayay, tashanayay. go'aankii ugu dambeeyana waxa uu ku gaaray inuu cagta mariyo meesha masaajidka ku yaalo. habeenkii ayuu soo ahday, balse subaxii ninkii waxa uu soo kacay isagoo si kala ah. ninkii oo wada bararsan oo meel la taabto aan lahayn, sidoo kalena xaalku ku xun yahay ayaa soo kacay. waxa uu si dheer bararka inuu waalu ku dhuftay oo uu lambar 7 qaatay, sidoo kalena uu xaaladiisu gaartay. ninkii waxa laga raacay beydka Ilaahay oo ku jeesjeesay, sidoo kalena wuxuu ilaaway in waqafka ama sadaqada masaajidu ay tahay mid aan ka goyn ilaa maalinta qiyaama, ilaa maalinta la isxisaabayo. waxa uu hilmaamay in sadaqada masaajidadu ay tahay tan ugu wanaagsan ee la sadaqaysto, sidoo kalena bulshadu ay caalamku ama muslimiintu ay u tahay sadaqo jaariya. sadaqo jaariya waxaan ka go'ayn xataa haddii aad dhimatid. ninka waxa uu ilaaway dhammaan asbaabahaasi, balse mucjiso degdeg ayaa Alle ku soo kadiyay. sidoo kalena xaalkii ayaa ku xumaaday. ninkii wuu waashay, burooyin iyo nabro waaweyn jirkiisa waa ay ka soo baxeen, sidoo kalena xaaladiisa caafimaad ayaa aad u liidatay. raawiga qisadan ayaa waxa uu sheegay in qisadan laga baran karo inaan lagu jeesjeesin diinta Ilaahay iyo sidoo kale wax walba. dhalinyarada Facebook isticmaasha qaybo ka mid ah ayaa waxa ay sheegeen in xajkii ay u tahay magaalada Garowe. nin dhalinyaro ah oo Facebook isticmaalay ayaa waxa uu ku jeesjeesay xajkii Baytullah ayuu ku jeesjeesay, isagoo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ku sheegay inay uga qiimo badan tahay xajkii. sidoo kalena waxay dhalinyarada Facebook maalin walba u gafaan rasuulkeena calayhi salaam, iyagoo markaasina erayo naxdin leh isku hawada isku mariya. dhalinyarada qaybtood ayaa diinta islaamka caadi uga tagay, halka qaybo kalena ay diinta ku jeesjeesaan. haddaba daawade, dhacdada ninkan waxaynu ka baran karnaa in diinta lagu jeesjeeso ay carar Rabbi oo soo degdegta ay ka dhalan karto. kabtan Ayuub iyo Daahir Calasow ayaa ka mid ah dhalinyarada caanka ah Facebook ee maalin walba diinta Ilaahay ku jeesjeesa. waxaa laga yaabaa in Rabbi uu awoodo inuu degdeg ku soo dejiyo oo cadaabkooda ama mucjiso ku soo dejiyo, balse kaadi badana waa loo gogol badiyaa. haddaba daawade, muuqaalkan adiga maxaa kaaga baxay? masaajid ama beyd Ilaahay oo aad u waqaftay, sidoo kalena aad dhistay, ma burburin lahayd sababa la xiriira inaad meherad cunto ka samaysid? adigu arrintaasi sidee ayaad u aragtaa? ma arrintaasi ficilkaasi ma samayn lahayd, mise dad baad la tashan lahayd oo markaas kadib ayaad samayn lahayd, mise maadan samayseen? qaybta hoose ee commentiga waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad markaasi faallo ka bixisid, sidoo kalena muuqaalkan like saartid una sheergaraysid saaxiibadaada. dhacdada la yaab kale ayaa waxay ahayd iyadana mid ka dhacday magaalada Buurtule ee gobolka Nugaal.
nin ayaa markaasi wuxuu go'aan ku gaaray in masaajid uu markaasi ka dhisto meherad sidoo kale uu ka dhisto. balse ninkii isagana duqad ayaa madaxa kaga dhuftay, sidoo kalena ninkii mar waa caadi marna waa waalan yahay. haddaba daawade, nimankaasi waxay niyadda gashadeen in beydka Ilaahay ay markaasi goob cunto lagu cuno ay u beddelaan, waxaana Ilaahay ka qaaday talaabo uu markaasi uu ka qaadi lahaa. sidoo kalena Ilaahay quraankiisa ayuu ku sheegay inuu markaasi ilaashanayo diintiisa Islaamka iyo goobaha markaasi muhiimka ah ee lagu cibaadaysto. waa isaga rasuulkiisa ku lahaa, annaga ayaa xifdinana diintan iyo quraanka iyo digriga aynu kugu soo dejinnay. haddaba daawade, muuqaalkan maxaad adigu ka baratay diinta Islaamka? haddii aad ku jeesjeesid, haddaba ka digtoonow oo ka fogow. muuqaalka sii sheergareeya lana wadaaga saaxiibadiinna si markaasi meel fog ugu gaaro. ku mahadsanidin.